xukuumadda maanta talada haysa waxaanu kula talinaynaa wakhti adag baa lagu jiraa gudeeyo dibadba cabasho badan baa ka jirta waxaanu kula talinaynaa inay talada badiso waxaanu kula talinaynaa inay talada badsato dadkii khibradda iyo aqoonta lahaa ee dalkan qiimaha weyn ku lahaa ee lagu tuhmeeyay caqliga iyo cilmiga iyo garashada oo la leeyahay qaarkood albaabadu waa ka xidhan yihiin inay la tashato si dalkani uu horumaro ayaanu kula talinaynaa. ay xaraan tahay in dhiiradaadi ama horaada abuura idaacado iyo dowladda Soomaaliya oo dhaar ku mareysay inay Soomaaliya soo wareegayso inaanay dagaalka ka joojinin waa mid yaab leh maanta kamina firin Soomaaliya oo nu ognahay Soomaaliland wixii ku dhacay haddii inaga ay nabad iyo wanaagsanimo ka taaganahay oo leenahay dagaal iyo khasaare iyo colaad intii hore Soomaaliya oo dhan ugu filan dadka mas'uuliyiinta ee muqdisho garoowe jooga ee maanta ku dhaaranaya inay Soomaaliland soo wareegayaan waa fan cudurka billah warana wixii gaaray horena waa qabnaa nabadda waa ka doonaynaa Soomaali maanta inay isku dhimato diiniyan iyo dadnimada saxma waxaan ku darayaa Soomaaliland waxaan sheegay haddii ay weerarka soo qaadaan inay tahay difaac lagu filan oo dalka iyo dadka ammaan ciidanka iyo dowladdu gelmayaan waxaan sheegnay inay dowladda iyo ciidamadu ku filayeen dalka ammaan galiyaan oo dalka lagu soo duulo khalkhal la gelin waxaan sheegaynaa nabadda aanu intaa ku baaqaynaa inay ahay baqaya tahay dalka inay tahay waayaaragnimo iyo danta guud loo eegayo dhammaan Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inay taa ogaadaan oo cid colaad u hayn cid ka maar weyda ee wixii hore dhacay maantana xamar iyo garoowe ka soo hanjabaya miirqabo maaragno haddayna soo weerarno dalkayda ku wadaafacayna xukuumadda waxaanu leenahay war dadka ururiya war nin aan dadkiisa ururin cid iskama celiyo ama ha noqdo cadow gudaha ama ha noqdo cadow dibadda xukuumadda waxaanu kula talinaynaa ninka xaakimka ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii waxaa ka mid ahaa almu'minu alifun ma'luuf hogaamiyuhu waa mid dadka ururiya oo lagu ururo ayuu rasuulku calayhi salaatu